السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتي wanaagsan saaxiibayaal mar kale meel kastoo aad joogtaan halkani waa Aqoonsi TV aniguna waa Mustafa Xaaji Aadan Haaruun ku soo dhawaada faalaynu ka bixinayna jawaabtii ka soo baxday hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee Soomaaliya ee NISA xalay xilli dambe ayuu ra'iisul wasaaraha dawladda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble waxa uu muddo 48 saacadood u qabtay hay'adda nabad sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka ee NISA inay jawaab cad kaga soo bixiso waayitaanka ikraan tahliil warsame oo ahayd sarkaaladiyadu ka tirsan hay'adaasi NISA oo 26 bishii lixaad sanada 2021 sideedii fiidnimo ay cid ugu dambeysay isla markaana la la'aa meel ay jaan iyo cirib dhigtay waayitaanka ikraan ayaa waxa uu noqday heer kiis runtii gilgilay guud ahaan ummadda Soomaaliyeed ayaa uga wada naxday runtiina boo ku noqotay jawaab la'aanta dawladda federaalka taasi ayaa waxay keentay cawaaqibkii ka dhashay in dad la ehela gudoomiyaha hay'adda nabad sugidda qaranka ay afduubtaan dad la ehela ikraan tahliil warsame markaas ayaa ra'iisul wasaaruhu dalbaday hay'adda NISA inay jawaab cad ka bixiso jawaabtii ay hay'adda nabad sugidda iyo fahad siyaasi soo saareenna waxay u dhacay sidatan ku socoto ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble og wasiirka amniga qaranka Xasan Xundubey Xajimcaale og gudoomiyaha golaha shacabka Soomaaliyeed Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan og madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ujeedo codsi soo jeedin warbixin ayuu yiri warbixintaasi lagu yiri war-saxaafadeedka qoraalka ahaa mudane ra'iisul wasaare salaan naga gudoon anagoo fulinayna amarkaaga maankana ku hayna xasaasiyadda kiiska sarkaalada ikraan tahliil oo noqotay mid heer qaran ah gudanayna waajibaadka naga saaran amniga qaranka fahamsanna in dhacdadani ay si toos iyo si dadbanba u qusayso xafiisyo iyo hay'ado kala duwan oo dawladda ka wada tirsan xaqna u leh inay ogaadaan xaqiiqda dhacdadan iyo xogta ay xambaarsan tahay warbixintan aad naga dalbatay waxaanu si sharaf leh kaaga codsanaa in aan warbixintan ka horjeedino golaha amniga qaranka oo wada dhan oo ay xubno ka mid yihiin hay'adaha iyo xafiisyada ay arrintan khusayso ayuu yiri war-saxaafadeedkaas NISA ka soo baxay sidoo kale sitaasi ay u fusho hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranku waxay codsi rasmi ah u dirtay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya inuu fursad noo siiyo qabsoomidda shirka golaha amniga qaranka maadaama uu yahay gudoomiyaha golaha amniga qaranka ahna taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida ee dawladda federaalka mudane ra'iisul wasaare waxaanu ku kalsoonahay inaan la wadaagayno golaha warbixin buuxda oo daaha ka faydaysa ama furaysa xaqiiqda halkaasna lagu gaaro go'aan ka taabanaya dhammaan hay'adaha uu quseeyo kiiskani mahadsanid mudane Fahad Yaasiin gudoomiyaha guud ee NISA hay'adda sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka Soomaaliyeed ayaa war-saxaafadeedkaasi uu soo saaray maanta lagu yiri haddaba jawaabta uu ka bixin doono Maxamed Xuseen Roble ra'iisul wasaaraha dawladda federaalka ee Soomaaliya maxaa ay noqon doontaa warbixintan maxay hadoodilaysaa ee ku hoos tuugan Fahad Yaasiin muxuu og yahay warbixintu meelaha xasaasiya ayay gashay waxa jira intaynu ognahay in ka badan oo inaan ogeyn haddaba si aad wax badan uga ogaato qayb ka noqo kumanka kun ee saaxiibano halkan degal wadaagta ku nahay warbixintan markii ay ka soo baxday xafiiska nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee Soomaaliya waxa markiiba iyaguna jawaabo kala gedisan oo mucaaradada ka bixiyay gudoomiyaha xisbiga wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo isagu yiri maaha waxan wax lagu kalsoonaan karo mahad salaad ayaa isaguna warbixinta la mid ka qoray halka kala socoteen waa Aqoonsi TV anigoo Mustafa Xaaji Aadan Haaruun ayaa idin la socodsiinayay kulanti dambe barnaamij la mid inta ku kulmayno waxaan idin leeyahay sidaas iyo fi amaan Allah